السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرديي وابوغينا التربية الإسلامية وعشر كي أفراد عشرة هودا يسوسو مرينو وحين كتشرني وحدة لحاد ودمانتيد كهد لسي أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحين سوق هذا الني عشر ككوبات أو عوان كيسوا حقوق الجار عشر كاس أو كهد ليي أما كد الوريغي حديث كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكلها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ciwaankeenu maanta wuxuu ka bilaamayaa irshaadaat ulxadiid xadiiska aynu soo akhrinay oo aynu ka soo hadalnay waxyaalaha ujeedooyinka aan uga dan leenahay iyo macnihiisa macnaha ijmaaliga ah saxaabiga wariyey taariikhdiisii oo kooban macaanilmufradaadkii ku jiray aynu soo qaadanay tatimo yar ayaanu ka qaadanayna casharkii hore unbu daba socdaa cashar cusub maaha. kow markaa irshaadaatulxadiid waxyaalaha xadiidku inagu hanuuninaya waxaa ka mid ah alislaamu islaamku yaxuthu lmuslimiina muslimiinta inuu ku dhiirigelinayo ku boorinayo calaa maa yu-addii wax keensanaya ila almaxabati jacayl iyo walukhuwati walaaltinimo beynahum dhexdooda. marka la yidhaahdo waxa la isa siiyo, marka la yidhaahdo ha la isa soo dhoweeyo, wejiga ha la isu furfuro, yani jacayl ayaa meesha imanaya. labo liljaari jaarka waxaa u sugnaaday xuquuq oo cadiimatun weyn, minhaa xuquuqda waxaa ka mid ah alixsaanu in loo samafalo, alixsaan in loo samafalo ilayhi jaarka in loo samafalo. see loogu samafalayaa? wejigaad u furfuraysaa, waxaad awoodaad siinaysaa, qowl wanaagsan baad kula hadlaysaa. cadamu iidaa'ihi iyo inaan lagu dhibin bilqowli qowl aw bilficli ama ficil aan lagu dhibin. qowl ku dhibi maysid, aflagaadayn maysid, xumaan afkaaga kaga dhihi maysid, bilficli gacantana waxyeello uga geysan maysid. saddex min kamaali liimaan iimaanka kaamil noqoshadiisa waxaa ka mid ah alixsaan in loo samafalo ila aljaari jaarka wa cadamu iidaa'ihi iyo inaan la dhibin walow kaana jaarku ha ahaado kaafiran. afar lidayfi dayfkii iyo martidii waxaa u sugnaatay xuquuqda oo bilqowli qowlka ahaaday. qowl seebay u ahaatay? ka tarxiib in la soo dhoweeyo bihi deriska bilkelimaati kelmadee lagu soo dhoweeyo kelmadaha dayibati wanaagsana. wa bilficli xuquuqda oo ficil ahaatay kalqiyaami in la isu taago oo kale biwaajibi diyaafa martigelinta waajibaadkeeda. shan yajibu waxaa waajiba xifdulisaani in carabka la xifdiyo biisticmaalihi iyadoo lagu isticmaalayo fil khayri ereya khayra iyo watarki iyadoo laga tegayo qowla shari qowlka sharka iyadoo laga tegayo. subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa allah washhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluh.